naagtidu ay iga maqan tahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نقد ونعكسن وولالكين عبد الكريم صومالي هم فاميلي channel سيدا وتقانين بقى. إذا نقد ونعكسن وحيدين وذا فيديو هذا نمر لبعض يجسوا يابيه يمرسد حد بيجي يابيه أو كسابسن فرتم بالبلاركة ووقتهم فنانة وحاهو هي حمر أيضا أشيدن هذا inkastoo fanaanooyin kaleeta ay joogaan laakiin maalmahan ayadaa kacsan ayadaa dabka saaran. Anyway, ninkeedaa soo baxay martuun balbalaarka afaaraheeda ma la geli karo waa ogtihiin wixii ayada samaysay inkiree. Hadda ninkaasito wuxuu leeyahay aniga xaaskayga ay tahay oo qabo. Balbalaarka anaa qaba jiray waana qabaa isla deertaana waa qabaa. marka niman dhahay anigay xaaskayga tahay oo qabo wuxuuna la soo fadhiistay ama uu soo fadhiistay oo soo muuqbaahiyey walaalkayga Lil Life waa ogtihiin nin bashaashe oo muqdisho noo joogo waaye. asagaa ninkaasayta uu la xiriiray siduu sheegayna gosha uu uga imaaday dhowr beri ay soo wacaysa waxaan ku dhahay beri imaaw maanta waa imaatay arrintan ay haysamo sax okay naagtaada waa fartuun balbalaarka. Anyway, ultimately wuxuu ku guuleystay inuu soo fadhiisto channelka Lil Life. Okay, Lil Life asaga ma ahan maxaa la dhahay asaga ma doonanin asaga kolley soo raadiyey siduu uu Lil Life noo sheegay uu dhahay ninkan asaga isoo wacay. ninkan asaga markuu soo wacay Lil Life kolley YouTuber waaye uu qaabilay wuxuu u qaabilayna waxay tahay inuu waxa uu wado uu ka dhageysto haddii aqli ay tahay iyo haddii xeelad ay tahay. Anyway, ugu dambeyntii wax alla wuxuu wado uu ka dhageystay oo ahayd ninkan inuu yahay ninkii fartuun balbalaarka. ninkan fartuun balbalaarka asaga laftirkiisa aniga fara iigu godan farti iigu godan waxay tahay nin naagtiisa la qaatay ama la fasahaadiyey mar hore uu soo cabaadi lahaa ama uu ka soo hadli lahaa meel walbuu joogona waxay ku qaadan lahayd inuu wax uu sameeyo maahe asagii hadda markuu xataa uu sheegayo uu leeyahay naagteeda xasan toobiya surwaal u geliya caloosheed waa banaaneed dabadeeda. nin naagtiisa kolley aniga saas dhahaayo ma jiro waa ku adkaysanaya ma jiro. haddii ay qofka dhacda xataa qofkaas inay kala baxaan ma dhacayso heblaayo saan maya way dhici kartaa. Okay, kasoo qaadba way isguursadeen way isqabaan ayagiyaa xumaatay asaga ma ku dayanayo qofka hadduu aqli leeyahaa ka hadlaya ma dhahaayo qofkaas saas waaye. laakiin ninkan maxaa la dhahay gabarti meeshii uu uga bahalkeen lahaa uu uga cebasturi lahaa uu dhihi lahaa haddii xaaskiisa hore ay ahayd aabbaay hadduu khaladkaa dhacay ilaah kusoo hanuuniyo wax adi kolley just af maxaa la dhahay si fiican wax u sheega wuu ku yaalaa. laakiin haddii intaa soo orodid aab iska ordaysid speedkaaga uu unlimited yahay waxyaabahaasoo kale ku hadlaysaa. ta kaleeto aniga ahaan ma aaminsani kolley Lil Life wuxuu kasoo dhihi doona moogi asaga iga yaqaana ninkaas maanta asaga walaalkii Lil Life asaga zaid iga yaqaan laakiin aniga ma aaminsani ninkaas in uu fartuun balbalaarka qabo. teeda kaleeto fartuun balbalaarka sidee noo sheegtay ognahay hal wiil inay leedahay ayaan filayaa oo hadda ka hor ay video la soo gashay. asagana wuxuu leeyahay caruur badan ka hadlaya caruurta anaa sii hayn jiray intii ay soo baxday inay xamar ay kaliya inay soo baxday shaqo ka raadsatay shaqadii ay heshayna uu cleaning ahaa ama nadaafad uu ahaa. Anyway, ninkan hadalkiisa horta
qofka markii uu xaaladaas oo kale ku sugan yahay xataa hadduu ku sugan yahay xaaladaas oo kale qofka qiirada indhihiisa iyo afkiisa ka dareemaysaa laakiin qof iska qoslaayo qudaaraan gadaay waxaan filayaa inay kaftanka tahay koley walaalkay Lee Life asaa ninkaas zaid iga yaqaano inay gabadha xaaskiisa tahay iyo inaysan ahayn laakiin kor waayeel waa wada indho ayaa la dhahay kor waayeel wada indho waaye marka ku leeyahay qofka haddii uu yar yahay iyo hadduu weyn yahay qofka markuu wuxuu sheegayo ka akhrisan karaa wuu ka fahmi karaa waxa uu soo wado iyo waxa uu soo riixayo iyo waxa uu damacsan yahayba waa haddii aa aqli leedahay marka wiilkan anyway haddii ay noqotay xataa xaaskiisa videoga koley gadaalaha xoogaa yar idiin soo dhigi doona walaalkay Lee Life janaalkiisu ku jiraa ninkii full rabo ani wax yaraa kasoo qaatay marka intaa yarta ahaana igu filan oo idinka idinku sheegayo marka waxaan idin leeyahay walaalayaal gabarta afartun balbalaarka kolley soomaalida maalmahan waa ogtihiin waxay iska qofa video soo saaranayo qof kala daba dhiganayo qof kale taa wax ka sheegayo horta jaaifada ma fiicno in la isjaaifeeyo ma fiicno haddii ay xaaskaaga tahay adiga ayay xilahaaga tahay waxaa kugu waaninayaa as you are my brother waxaa kugu waaninayaa inaa xaaskaaga ceebteeda aad social media ka sheegin oo hoos aad isula hadashaan haddii aad kala baxdeenna fantashiru fil ard banaankaas wuxuu u weyn yahay in lagu kala nasto ma ahan inaa maxaa la dhahay social media layska bahalkeeyo anyway waxaa kuu sheegayaa walaalkayga haddii ay xaaskaaga tahay oo kuugu celinaya haddii xaaskaaga ay tahay oo weli aa wada joogtaan gabadhaas la hadal oo waani ana kaaga tagaayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu